يصوتو وحي إيقاتي عداد يصوتو وحي إيقاتي إلا وحكيدا ورد إسيقا عداد يصوتو وحي إيقاتي عداد يصوتو وحي إيقاتي إلا وحكيدا ورد إسيقا waxaanku ilaaway araga wajigaaga waa hagaagdiisayaashanii xiisaha badnaa ee la socday sheekooyinkeenii kala duwanaa ee qaybaha ilaa mid aan jecel waxaad kusoo dhawaataan qaybta afartanaad ee sheekada dabcan sheekada afartan qaybood ayaa u buuxsanay waa qayb aad u xiiso badan isla markaana aad kaga heli doontaa fikrada sheekadana waxaa iskale alaabwaan isna si toosi dhegeysi habboon intaan war badan idinku helin qaybtan waxaan ugu magac darnay sheekada lurbeeristii bilan iyo la tashigii saaxiibadeed baaryare oo qoslaya ayaa wuxuu u soo cararay dhankii bilan waxaanuu yidhi maanta quruxsanido waadba iga dhex baxday camale bilan oo dhankeeda ka muuqda in dareen jacayl baari kaga jira ayay ugu falcelisay iyadoo sarbeeb kaga dhigaysa inaan kaa dhex baxa maahane weliba waxaan rabaa inaan laabtaada seexdo camal jac dumaashey laabteeda qofaa dhex jiifta miyaadan la socontaas asagoo kaftamay ayuu sidaa yidhi waan la socdaa laakiin ka waran jacaylka walaashay aad u qabto ilaa heer kuu kaa joogaan camal ayay ayana tiri wallaahi dumaashi ma qiyaasi karo heerka uu iga gaarsiisan yahay rabitaanka barnideeda waxaanse arkayaa inaysan iga liidan ayada xitaa markuu intaaba yidhi bilan uusxumo ayay dareentay waxayna isu muujisay baari inaysan jacayl u bandhigi karin iskana ilowda damaca beenta ah ee qalbiga kaga jira bilan in muddo ah siday u qarqarinaysay jacaylkeedii ayaa waxaa u soo sawirmay kala geynta walaasheed iyo baari taa oo bilan aysan rabin inay ku dhaqaaqda ha yeeshee uu ku dholiyey inay sidaa go'aansato maadaama bilan ay nafsadeedii ka samirsiin weyday baari jacaylkay u qabta misna awoodi kari weyday inay u bandhigato waayo waxay ogeed una muuqatay in baari caddu uusan aqbali karin inuu rabitaankeeda fuliyo walaasheed barnina way kala baqday inay tiraahdo baarigeedii ayaan jeclahay taana waxay ka dhigatay ceeb inay ku tahay islamarkaana suurogeli karin in iyada iyo walaasheed isla jeclaan karin hal wiil haltabinta sheekadani waxaa iska leh raadiyo Firsamo. ha yeeshee bilan markuu ku soo kordhay fikradan lugooyada ah ayay damacday in gabadh saaxiibteeda ah laguna magacaabo hani qalbi suuq ay la kaashato hani waa gabadh ka shaqaysata goob lagu qurxiyo hablaha islamarkaana Soomaalidu u taqaan bukuyeer waxayna saaxiib dhow yihiin bilan jaraadile gabadhii bilan ahayd waxay tagtay goobtii saaxiibadeed waxaana caado u ahayd bilan iyo saaxiibteed markay kulmaan inay kaftamaan waxaana hadalka bilowday hani qalbi suuq oo tiri armaanta ishaartan ka arko arame baa iiga muuqatay tolow sidee waxay yihiin
rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori markaad wehelsiisay naftayda wareertay rabbiga walwalkiisu wanaag isku doori dhegeystayaal waxaa halkaa inooga dhan aan ku soo koobaynaa qaybtii afartanaad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel intaynu dib u kulmi doonno qaybaha xiga ee sheekada waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo sheekadani waa sheeko xasuus badan islamarkaana jacayl dhab ah waana qiso dhaba waxaana sheekadan qalin ku qaatay alabwaan isma sitowsi waxaadna kala socotaan sheekadan idaacaddeenna raadiyo hirsamo tiri way kan walaaci hayskii daqiiqad ku waaye